sida loo isticmaalo maalmaha aad la joogtid ciise masiix milicsiga shakhsiyeed noloshaada sidee ahaan lahayd haddii aad daqiiqada yar maalin walba la qaadan lahayd ciise masiix ma jeclaan lahayd inaad si aad u dhow ula socotid ciise masiix ma jeclaan lahayd inaad wadnihiisa si aad u fiican u baratid waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad isticmaashid maalmaha aad la joogtid ciise masiix si xidhiirka aad la leedahay uu u sii qoto dheeraado maalin walba waxaad daawan doontaa qayb yar oo ka mid ah filimka ciise masiix kolkaa ka jawaab 2 ilaa 4 su'aalaha shakhsiyadeed si ay ku caawiyaan inaad ka fikirto waxbariddiisa ciise masiix wuxuu noqon doonaa kaaliyahaaga safarka adigoo arkaya oo maqlaya in ereyga ilaah uu nool yahay maalin walba koowaad ducayso oo weydii in ciise masiix kula hadlo labaad daawo fiidiyowga dadka qaar waxay u arkaan inay waxtar leedahay inay siiyaan daqiiqado dheeraad ah oo ay fiirsadaan fiidiyowga mar labaad ama mar saddexaad si dhab ah ugu fiirsa erayada ciise masiix iyo waxbariddiisa saddexaad su'aalaha uga jawaab si daacad ah oo qalbigaaga ka timid afaraad la hadal ciise masiix u sheeg isaga sida aad casharka uga dhaqmi lahayd maalin walba noloshaada ama nolosha dadka kale uga mahad celi ciise masiix inuu runku yahay una sheeg waxyaalaha kale oo ku jira qalbigaaga kadib iska tag oo qabso nolol maalmeedkaada adigoo fiirinaya sidaad u samayn lahayd waxa adiga iyo ciise masiix ka wada hadasheen waxaad ogaan doontaa sida runta ah oo xamaasadda leh oo uu ciise masiix noloshaada uga hadlo wakhti la qaado ciise masiix una ogolaaw noloshiisa iyo shaqadiisa inay beddesho wadnahaaga dabeecadahaaga mabda'aaga iyo ujeeddooyinkaaga